أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا يروان السلام يا من والبدتم كجوكتين كسر دواذا قيبتي أفراد أي موضوعيا كهاللي أو أها قربها أما وامحي قربة قيبتنا أفراد أورك كهاللي دونه topica cinwaankiisu yahay weligaa qurbo ma dareentay adoo dhulkaagii hooyo jooga. dhegeysi wanaagsan. qaybihii hore ee mowduucan qurbaha waxaan kaga soo hadlay dhibaatooyinka uu qurbuhu leeyahay ee dadka qurbo joogta ay la kulmaan iyo waxyaabaha wanaagsan ee laga faa'iideysan karo. haddaba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucan qurbihii horeen ka hadlayay ka duwan. qurbahan ka hadlay waa adiga oo qurbo dareemaya adoo qurbo joog muddo ahaa haddana dhulkaagii markaad timaado qurbanimo haddana dareemaysid, waayo weli maskaxdaadii waxa ku jira qurbanimadii aad muddada dheereed ku jirtay. marka aad dhulkaaga timaadid ee weliba adoo in badan ka maqan ama laga yaabo inaanad aragba weligaa, markaad timaado adigoo aad ugu faraxsan inaad dhulkaagii timaday oo aad iyo aad ugu riyaaqsan inaad ciidaadii iyo dhulkaad kasoo jeeday iyo dadkaagii aad dhex joogtid, baa waxaa dhacaysa dhanka kalena inaad weli aad qurbanimo dareemayso. waayo qofku markuu dhulkiisii ka tago isagoo oo weyn haddana uu kusoo noqdo muddo kadib, laga yaabo inuuna wax badan auna isbedel saas auna dhulka ka arkin ama aw wadcigii iyo waayihii markii hore uu ku noolaa si fudud ula qabsanayo. laakiin dadku markayna ayna dhulkooga ayna arkin ama ayna ku dhalanin ama iyagoo yaray ka tagaan, markay soo noqdaan ay waayaha arkaan, waayaha kala duwan ee dhulkii ka jira markay arkaan, taa laftigeygii waxay ku ridaa dareen kale oo haddana qurbanimo ama inayna la qabsan karin waayaha dhulka ka jira. waxaan u maleynayaa inay dad badan ila fikir yihiin, laakiin waa shay anigu aan dareemay runtii markaan dhulkii ku noqday, taasi oon muddo 5 sano laga joogo ay ahayd markii ugu horreysay dhulkayga tago. 5tii sano ugu dambeysayna aan weliba sanad walba tagayo ku noqonayay aniga oo aad ugu faraxsan inaan dhulkayga tago, ilaahayna ugu shukriya mar walba. ilaahay ii rumeeyey ee ii aqbalay ducadii aan mar walba ku ducaysan jiray ahayd ilaahayow marun dhulkayga iigee, oon ilaahay mar walba ugu shukrino, ilaahayna igu simay oon aad iyo aad ugu faraxsanaaba. haddana waxay igu dhacday shoog kale oo ah inaan waayaha dhulkii jira iyo dadka aan haray iskula qabsan weyno, inaan yara dareemo inaan isolated ahay. waxaad isolated ku noqonaysaa afkaarta aad xambaarsan tahay, waayihii kala duwanaa aad soo aragtay qofka qurbo jooga oo soo arkay iyo waayaha dhulkii ka jira oo kala duwan. runtii habka loo nool yahay, habka loo fikirayo, waxyaabaha la aaminsan yahay, runtii kala duwanaanshahaasi wuxuu keenayaa haddana inaad qariib ku noqoto dhulkaagii oo inaad la tacaqulumto ama aad la qabsato waayaha ay waqti kugu qaadanayso. dhibaatadana waxaan odhan karaa waxaa keenaysa qurbanimada. qofku markuu qurbaha muddo ku raago, haddana taas waxay koos garanaysaa inuu haddana dhulkiisii markuu soo noqdo oo qurbo noqdo. soo labadii meeloodba qofku qurbo ayuu dareemayaa iyo inuu noqdo qof isolated. runtii waa qurbanimo aan odhan karo dee taasaa ugu adag, adoo muddo dhan sugay inaad dhulkaaga ku noqoto, haddana markaad ku noqoto inaad qurbanimo kala dareentid. laakiin taas waxaa u dawa ah ama lagaga baxaya inuu qofku waqti badan uu ku qaato dhulkiisa, waqti badanna isa siiyo inay bulshada iyo dadka isdhex galaan. waqtiga unbaa bedeli karayaan anu aaminsanahay arrinkaasi. laakiin waa shay kale oo runtii aniga ahaan laftarkaygu aan markaan tegay runtii aan la yara yaabay. waxyaabo fara badan baad
xataa dadka ku kala duwanaanaysaan, waayo qofku markuu karaalaada markuu qofku qurbaha muddo ku raago, especially tobyadii wiigii hore aan kasoo hadlay waxaa ku jiray yacni qofku markuu ku noqdo dhulkii muxuu ka bedeli karaa dhulkii oo kale. fikrado badan baa kugu jiro maskaxdaada ka gooxaya, wax badan baa marka dhulkii tegta aad odhanaysaa waxaan waa inaan wax laga qabto, dhibaatadan waa inaan wax laga qabto, sidan waa in la sameeyo si horumar loo gaaro. waxyaabo fara badan ayaa runtii wax walbood aragtid waxaad odhanaysaa maxaa wax looga qaban waayey, waad yara qariibsanaysaa sidee ku dhacday inayna dadku ayna waxba uga qaban. yacni dadku iyaguna dowlad hagaagsan haysanin, haddana dadku mar walba iyagaa runtii nolosha samaysan kara, qurxisan karana. taana waxaa lagu gaari karaa dadku inay muwaadiniin saxa noqdaan, waayo dadkeena aad bay ugu yartahay muwaadinimadu. dadka yacni anu aan arkay runtii laxajeclada dhulka ay ka qabaan aad bay ugu yartahay. waxyaabaha qaarkood markaad u sheegtid xataa adigiiba dib lagula yaabayaa. waxyaabaha xataa kale een aadka uga sii yaabay waxaa ka mid ah aad xataa yara qariibsanaysid markaad fikir aad tidhaahdo fikirkaasa ayaan wadaa, ama urur ahaw ama wax dee ku jir aad tidhaahdo in laga wada shaqeeyo weeyaan. dadku ha iyo maya midna kuma odhanayaan, dhexdun bay ku yara dhigayaan. marnaba horta maya laguma odhanayo, haa marka lagu yidhaahdo waxaad sugaysaa in dee laga qayb qaato arrinkii, balse waxaad arkaysaa dadkii inay ka wada cagajiidayaan oo inay interested ku ahayn, taasoo marka dambe adig ku kalifaysa wixii inaad iska bedeysid. waxyaabaha kale ee xataa ka mid ah tacaamulka dadka, qofka haddaad wax weydiiso inta uguba dadka qurba joogto toos yacni wuxuu waa straight forward, si toosaad qofka wax u weydiinaysaa, qofka lagama yaabo inuu si toosa kuugu soo jawaabo, haddana si indirect ayaa mar walba lagugu jawaabayaa. waa waxyaaba iska caadi dhulkii marka la joogo dadku ay la qabsadeen iyagu ayna waxbaba u arkin, laakiin anigu runtii aan u arkayay dee like waxyaabo yacni igu qariiba dee oo qariib oo kale aan u yara arkay ama dee aan la yara yaabo. taana kolley waxaa qayb ka ah bi-ada lagu nool yahay iyo bulshada meesha ku nool sida ay u dhaqmaan ayaa mar walba dadka meesha ku nool dee saameyn ku noolaan ku yeelanayso. dadku markaa ay dariiqada u wada nool yihiin una cid walba iskula fahmaysaa markaa, laakiin qofku markuu meel kale ka yimaado dhaqano badan oona qofku la qabsan karin buu ku arkayaa oo bulshada dhexdeeda ah, taasoo marar badan xataa qofka ku kalifaysa inuu iska gaabsado haddii toole awna ka gaabsado inuu bulshada aada u dhexgala dee. markaa qurbanimada aan sheegay markaa dhulkii la tego waa taas weeyaan, especially tacaamulka dadka say iskula dhaqmayaan, waxyaabo fara badan ood qariibsanaysid. wax badan inay dadku dhulkii ka bedelaan way fiican tahay. dad kale oo adduunyo kale ka yimid inay bulshada la dhaqmaan oo laisdhex tago, cid walba ay timaado oo wadanku noqdo wadan cid walba u furan oo xadaarooyin kala duwan ay yimaadaan, runtii way fiican tahay. waxyaabo fara badan baa laga yaabi lahaa inaan dadka kaga dayano oon inaguna aan markaa ku dhaqano. horumarka la rabo ee la hiigsanayana runtii waa mid qof walba oo muwaadina oo Soomaaliyeed meel walba uu joogo waa mid yacni waajib ku ah, waa waajib saaran weeyaan. dadka aad moodadee dhulkeenii jooga runtii inay caabir sabiil yihiin, adduunka horta caabir sabiil baa la wadayahoo meeshii loo socday weli lama gaarin, laakiin iyadoo sidaa tahay haddana waxa fiican qofku meesha uu joogo wada ilaa intuu safarkiisii kale au bilaabmaya au dee meeshii kale loo socday loo wada socday la gaarayo, dee meesha inuu wanaajisto ayaa qurux badan, darayada ka dhago wixii lagu noolaan lahaana asaasiyaadkiina bayskiina la samaysto, because dadkeena waxaad moodaa inay bayskii dhan ee nolosha xataa ay naga qaldan tahay. waxyaabo fara badan oo in la dabargooyo ah baa jira oo in la horumariyana ah, sida caafimaadka iyo waxbarashada.
oo runtii waxyaabaha adduunyada xoogga la saaro ay ka mid tahay. waxaa kale oo iyaduna aada u muhiima inaa xoogga la saaro caruurta yara soo koraysa, in focuska la saaro oo aada iyo aada daryeelkooga loo xoojiyo oo loo sameeyo xataa waxyaabo fara badan oo maskaxdoodii jirkoogaba korinaya. yacni santaro aada u fara badan oo ciyaalka ku takhasuska, oo ciyaalka hadday sport tahay iyo hadday tahay maxay ahayd waxyaabo kale oo runtii kobcinaya naftooda iyo maskaxdooda iyo jirkoogaba in loo sameeyo. waxaad moodaa in ciyaalka aan runtii focus aada ana la saarin, waana dadka aan rabno inay bedelaan dadkan jooga. mar walba adduunyada waxaa focuska la saaraa caruurta yara dhalata iyo caruurta soo koraysa. yacni runtii serviceyo fara badan oo dhulkii laga sameyn kara ayaa jira, laakiin dadku ayna u dhundaloolin ama ayna yacni aad moodid inay iska ag marmarayaan, oo inta ugu badan ay dadku runtii ay iska indhatiraan. dadka dhalinyarta dhulkii joogtana intooda badan ayna dhulka kuba nooleen maskaxdoodu, aad moodid inay qof walba higsanaya dee dibadda inuu usoo baxo ay yar tahay, aada u yar tahay. dhalinyarta dhulkooga aaminsan ee ka shaqaysanaysa aada iyo aada u yar tahay. wacyigelin aada ayaa loo baahaya mar walba in loo sameeyo dhalinyarta, in dhulkooga la jecelisiyo. wadaninimadu waxay tahayna dadka loo sharxo, si waxyaabaha aadka u fara badan, dhibaatooyinka aadka u badan dhulkeenii ka jira si loo yareeyo oo loo minimize gareeyo oo baahida looga baxo. baahida dadkeenu waxyaaba ugu badan yacni anuga number one yacni in la dabargooyo looga baahan yahay waxa weeyaan baahida in la ciribtiro faqriga. adduunyada waxaanu ku jirnaa wadanada dadkoogu ay like under the poverty line-ka ay ku nool yihiin. poverty line-ka ama yacni taxta khata alfaqr bay dadkeenu ku noolay inta badan, oo $1 bay family maalintii. poverty line-ku waa $1 family kasta. inagu waama kasii hooseynaaba, waaba under the poverty line bay dadkeenu ku noolay inta ugu badan. waxaa aada iyo aada loo baahan yahay runtii in dadka aada loo wacyigeliyo. adduunyadan kale ee dadku ay ku nool yihiin loo yimidayna dhul inagu aan leenahay maaha, dhulkeenii bayna sugay in la dhiso oo wax loo qabto si jiilasha soo socda loo badbaadiyo, oo wax loogu helo mustaqbal fiican oo iftiimaya si loogu helo. ilaa inta la cirib tiraya qabyaalada aadka dadka u kala geysay ee dhibaatada weyn dadkeena ku haysana, uma malaynay inay wax hagaagayaan. waxaa aada u fiican runtii in qabyaalada sidii loo dabargoyn lahaa balankeyga la qabto insha allah. ilaahna waxaan ka rajeyneynaa inuu wallaahi soomaali haddii layahay boggeena burcad isku mariyo. adduunyadu waan ka dambeynaa, aad baan uga dambeynaa, waan ka dhacsanahe. ilaahay waxaan ka rajeyneynaa inuu dadkeena iyo wulaata amriga inta hogaanka dadka u haysa in ilaahay xaqa garansiiyo, oo wixii wanaag ku jira ee dadka iyo dalkaba wanaag u ah inuu ilaahay mar walba waafajiyo oy noqdaan dad sinaan, cadaalad iyo kitaabka ilaahay ku dhaqa ummadda, oo ilaahay uga cabsada ummadda runtii dhibaataysan ee meel walba ku dhibaataysan, ee dhibaatadu daashatay, ee burburkii ilaa iminka aadka u dhibaataysan, ee qurba iyo dalba ku dhibaataysan. ilaahay waxaan ka rajeynaa inay noqdaan dad ilaahay uga baqa dadka dhulkii jooga. iyagana waxaa laga sugayaa inay noqdaan dad la xajecla dhulkooga ka qaba, oo dhulkooga raba inay wax u qabtaan, no matter what waxay doonta ha noqotee, bal wuxuun inaad ku contribute garaysa adoo wadankaagii dhex jooga. maalin qurahaata xataa geed xabad yaroo geedana ka beer meel, oo hadhow toolo intay geedkaa aad subax walba intood waraabisid, geedkaasi intuu weynaado ajarkeega iyo bilicda au sameynayo iyo faa'iidada laga helayo dhan adu xataa aad lahaanaysid. wax kale haddaad kari weyda just take geed yarood meel inaad ka beertid, waa waxaad qof walba sameyn karo. taasaa ugu yar. xabad qashina dhulka ka qaaday ba iyaduna ugu yar, oo
qof ku tuuray xataa aad ka tiri gitaafada dhulka ku tuurine meel loogu talagalay ku tuur. yacni xataa haijin xumadii baa meel walba saa u daadsan oo dadka haddaad xataa aad u sheegtad ka tiraha waxani muxuu yahay xataa adigii dib lagula yaabayaa. waxyaaba badan in dadka laga wacyigeliyo ayaa runtii loo baahan yahay oo ummadan wax loo sheego. haddii qof walba uu iska aamuso oo waxba loo sheegi waayo dadka dayaa dadka wax u sheegaya. marka qof walba isagu ha isku bilaabo inuu dadka dhulkan ka tegaya ee dhulkii tegayna inay u tagaanuun maaha just inay caano geeliyo hilib fresh soo cunaan ee cadceeda isku soo dhigaan. no, wani maskaxdooda mar walba ay ku jirto markaad tagto maxaad usoo qaban kartaa dadkii, maxaad ka caawin kartaa dadkii. waa inuu qof walba taas ay ku jirto. hadduu qof walba taa uu isku qoflo una ku dhaqaaqo runtii wax badan waa la bedeli karaa. dadka dhulkii joogan iyaga laftigooga dadkeena dhulkii joogan inayna mar walba ayna iska xirxirin dadka qurbaha ka imanaya. labaduba inay isfahmaan baa fiican oo laga wada shaqeeyo sidii dhulka loogu horumarin lahaa. haddii la iskaashadana waxaan aaminsanay inaa wax badan la qaban karo. haddii kale de qof walba markuu halkan ka tegay haddana qurbuun buu dareemi dadkii markay iska xirxidhaan laysyar fahmi waayo. markaa qurbanimadan ka hadlayay marka dhulkii la tegana waa mid kaloo iyaduna jirta runtii. koley dad badanoo ila fahmaya way jiraan baan u malaynayaa, laakiin waa mid kaloo iyaduna dhibteeda leh. marka ilaahay mar walba khayrka hayna waafajiyo. waxaan u malaynayaa wigu yaro dheereeyay klibka. ilaahay kuwii mar walba kuwii khayrka isfara xumaha iska reeba ilaahay haynaga dhiga insha allah. haddii aad ka hesho mawaadiicdan ka hadlayo fadlan asxaabtaada la wadaag. waa aniga oo idil khaliifa oo inila. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.